السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku soo gudbinayaa qayb kamid ah qawaacida aasaaska oo ah qaab akhriska saxda ah. akhrisku marka hore wuxuu leeyahay maraaxil umur uu leeyahay dabcan waa saddex maraaxil saddexdaas maraaxil ayaan si guud u dulmaraynaa. saddexdaas maraaxil marxaladda ugu horeysa waxa weeye marxalatu ma qabla alqiraa'ah wax la yiraahdo marxalad ka horeysa akhrinta. marxaladan waxay ku sheegaysaa inaad marka hore naftaada u diyaariso inaad wax akhriso. hadalka markaan ku dhahayo waxa weeye inaad naftaada inaad weydiiso macnaha qayb kamid ah ama su'aalaha inaad weydiiso. su'aalaha weydiinayso waxa weeye majaalkee ama cilmigee baad doonaysaa inaad akhriso, inaad culumta aad doonayso inaad akhriso inaad cayimto. taas ayaa kamid ah masuugaan baa akhrinaysaa ma taariikh baa ma culum juqraafiga ku saabsan miya ma culum xaga ku saabsan dhaqaalaha iyo maamulka miya ayu shay aad akhrinayso waa inaad marka hore isweydiisaa. cilmiga aad doonayso inaad akhriso ayadan aad u muhiimsan tahay inaad naftaada weydiiso. kadib go'aaminta nooca cilmi aad doonayso inaad akhriso waxay u gudbaysaa su'aasha kale oo ah maxaan u akhrinayaa, muxuu yahay hadafka aan ka leeyahay akhrinta noocan cilmiga ah. cilmigan ma waxaan u akhrinayaa inaan kaga gudbo imtixaamaad tusaale ahaan oo kale waxaad doonaysaa inaad TOEFL ama IELTS diyaariso. saa darteed waxaan buugan u akhrinayaa ama maqaalkan waxaan u akhrinayaa ama noocan journaalkan ama baxthi cilmigan waxaan u akhrinayaa waxa ay tahay ujeedka ka dambeeya waxa weeye in aan ku gudbo ama aan helo shahaadooyinka TOEFL ama IELTS. taasi waxay noqonaysaa qayb kamid ah hadafkaaga. ama wuxuu noqon karaa waxaad akhrinayso inaad taqadum ku sameynayso xagga naftaada ah inaad shaqadaada horumarinayso ama nafsiyan aad u doonayso inaad naftaada horumariso iyo wixii la mid ah. ama aad arrinta u sameynayso safar aad doonayso inaad dibadda uga baxdo sidaa darteed aad u baahan tahay inaad geographical inaad u barato waddan ama taariikhdiisa wax un oo ka ogaato. arrintaasna waxay noqonaysaa hadaf aad ka leedahay wax akhrintan. marka su'aashaana ayadana muhiim u tahay inaad naftaada weydiiso. marka isaguna waxa la rabaa inaad naftaada weydiiso sidoo kale xagee ku akhrinaya. inta badan waxaa jira meelo ku habboon wax akhriska sida maktabooyinka. laakiin adigana lafteeda waxa la rabaa inaad cayimto inaad maktabad ku akhrinayso, inaad guriga ku akhrinayso, inaad goobo kale ku akhrinayso. ayadana waxay rabtaa inaad ka fikirto intaadan akhriska bilaabin ka hor, maadaama aan weli aan ku jirno marxaladii aan niri marxaladda ka horeysa akhrinta. sidoo kale waxaa la rabaa inaad naftaada weydiiso goormaan akhrinaya. in xilli walba macquul maaha inaad wax akhriso. waxaa jira xilliyo aad u firaaqo leedahay ama ku habboon wax akhriska. marka waxaa la rabaa inaad go'aamiso xilliga akhrinayso subaxii, duhurkii, hurdada ka hor iyo wixii la mid ah. inaad xillidaas go'aamisana ayadana waxaa la rabaa inaad ka fikirto ka hor intaadan bilaabin akhriska. arrinta la rabo inaad sidoo kale ka fikirto waxa weeye intaadan akhriska bilaabin goormaan dhammeynaya. inaad marka hore go'aamiso ama aad xadido waqti aad ku dhammeynayso macna waqtiga aad ku akhrinayso kitaabkan inaad jadwal u samayso. tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan kitaabka ku akhriyo isbuuc, 2 isbuuc, bil iyo wixii la mid ah. taas waxay noqonaysaa waxay kaa saacidaysaa inaadan buuggii kalbartan ama aad dhexda uga tegin oo aad buuggii dhammayso bay kaa saacidaysaa. marxaladaas haddaan soo akhrinay waxa weeye waa marxaladda ka horeysa akhrinta. marka waxaan u gudbaynaa marxaladii la oranayay marxaladda qiraa'ada, marxalatul qiraa'a baa u gudbaynaa. marxaladan maxaa weeye arrimaha u muhiimsan. arrinta ugu muhiimsan waxa weeye marxaladan akhrinta waxa weeye inaad ku raaxaysato waxaad akhrinayso, iskuna daydo inaad fahanto micnaha guud ee ku jira buugga akhrinayso ama baxthi cilmigan aad akhrinayso wixii la mid ah. ama jaraa'id ha noqdo ama majalad ha noqdo wuxuu doona ha noqdo. muhiimadda waxa weeye inaad ku raaxaysato qiraa'adan caajis iska gelin. sidoo kale waxa laga baahan yahay inaad ku dadaasho in aad si qoto dheer u fahanto cilmiga halka ku jira. muhiimadna ha siin inaad waqti u dheeray aad ku dhamayso buuggan. marka muhiimadda waxa la rabaa inaad fahankaas ayaa u muhiimsan. marka sababta waxa jira marka qaarkood inaad wajahdo ama ay ka hor yimaadaan
faqrooyin taas oo keenay inuu adkaado inaad fahanto. marka waxaa la rabaa faqrooyinka ku adkaada inaadan ka quusan ee aad u dulqaadato bedeshana xiilad aad keentana mataqaana xiilad aad ku akhrinayso ama xiilad aad ku bedeli lahayd qaab akhriskaaga. tusaale ahaan oo kale waxay u adkaaday qayb ka mid ah faqrooyinka, marka siyaabo ku xallin karaa weeye markaas. mar waxaa samayn kartaa haddii aad doonayso inaad waxaan xifdiso oo kale inaad qaab kor ah wax u akhriso, codkaaga dheereyso, sababtoo ah marka aad naftaada maqalsiinayso waxay ka caawinaysaa inay naftaada weeleyso. shayga markaad kor u akhrinayso iyo markaad hoos u akhrinayso dabcan farqi weyn baa u dhexeeya. marka taas markaad kor u akhrinayso waxay keenaysaa in naftaadu ay ismaqashiiso, hadhowna ay kuu fudaato inaad xasuusato. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad malaaxada mararka qaarkood ku samayso, ama aad si kale waa samayn kartaa waxa weye inaad khulaaso ku qorato meelaha ugu muhiimsan ee buugga ka hadlayo inaad khulaasayso, ama inaad weydiiso qof aad ku tuhmayso inuu cilmigan leeyahay. tusaalahaan kale cilmi waxaa akhrinaysaa physics, chemistry ama culumta taariikhda, dhaqaalaha, wax ay nooc cilmi aad akhrinayso waxaad samayn kartaa inaad macalinkaaga weydiiso, inaad saaxiibkaaga weydiiso, in qof kuu dhow oo arrimahan aad u garanaya inaad weydiiso, ayadana aad bay kuu fiican tahay. marka marxaladda labaad aan dhahayo waa marxalatul qiraa'ah. arrintaas weeye inaad ku dadaasho inaad fahanto waxaad akhrinayso, caqabad walba kusoo waajahdana inaadan iska dhiibin oo la rabo inaad u dulqaadato. sidoo kale waxaan kuu sheegay asbaabaha aad ku mari karto wixii kuu adkaado. waxaan soo sheegay inaad qofkii cilmi u leh ama macallin ha noqdo ama saaxiib ha noqdo ama qof kuu dhow ha noqdo wuxuu dan ha noqdo inaad ciddaas weydiisana aad bay u fiican tahay. marka waxaa jira marxaladda u dambaysaa jira aan niri marxaladda saddexaad weeye. marxaladda saddexaad aan dhahayo waxaa weeye marxaladda saddexaad waxa weeye marxalad aad u baahan tahay in aad tathbiit ku samayso macluumaadka akhrisay, macna inaad sugto oo aad xasiloso oo qalbigaagu ay si macna u galaan culumta soo akhrisay weeye. marka see waa ku samayn kartaa tathbiitkaas? waxaa ku samayn kartaa inaad muraajaco ku samayso qeybo ka mid ah ama qeybo cayiman wixii hore usoo akhrisay. maadaama aan nidhi qof inta badan waxaa fiican marka hore inuu qofku khulaaso sameeyo, inuu buugi dib ugu noqdo. buug wax macquula inuu aad u beej badan yahay, taasna aysan kuu fududayn inaad muraajaco badan ku samayso. marka waxaa fiican inaad khulaaso qorato, khulaasadaas inaad dib u eegid ku samayso. waxaa macquula meelo badan oo aad marka hore si qoto dheer usoo fahmin inaad dib ka fahanto, ama meelo badan oo fahankoodu kaa dayacmay ama kuu adkaada inaad dib ka saxdo, ayadana waa muhiim wey. marka muhiimadda waxa weeye inaad fahankaaga inaad aad u dheereyso oo aad muraajaco ku samayso, taas aad bay u muhiimsan tahay. arrinta kale lama baahan yahay waxa weeye inaad niqaash ku samayso, in dad waxaa jira khubro ah oo cilmiga aad u yaqaana, marka inaad falanqayn ku samayn karto culumti qaab ka hadal. macnaa cilmi waa akhriya oo iska daya lama rabo, wixii waa inaad ka hadli karto, falanqayn karto. tusaale qof hadduu ku yimaado oo cilmigii wax kaa weydiiyo waa inaad wax uga sheegi kartaa, waa inaad cilmigii aad falanqayn ku samayn kartaa. qofkii ku yimi inaad ka jaahil bixin karto iyo wixii lamid ah. arrimahaas marka waxay noqonayaan arrimaha ugu muhiimsan qaab akhriska loo maro. hadda waxaan ka hadlay waa 3 marxaladood weeye. marxalad ka horeysa wax akhrinta, marxaladda wax akhrinta, iyo marxalatu maa bacda alqiraa'ah oo tan hadda sheegayo ah inaad cilmigii muraajaco ku samayso, inaad cilmigii aad niqaash ku samayso, inaad mataqaan afkaar aad u kala duwan inaad ayada niqaash ku samayso, adoo si mataqaanaa dood la sameynayo dadka aad khibradda ugu leh cilmigan, ama dad wax un ka yaqaana cilmuntaas inaad aad ula doodi kartid ama aad u falanqayn karto, ayadan aad u fiican tahay. qof walba ama ardaygii wax kaa weydiiyana sidoo kale inaad ka jaahil bixin karto. marka 3daas marxaladood weeye wax akhrintu marxalada ugu fiican weeye. marka wuxuu leeyahay dabcan mahaaraad buu leeyahay, mahaaraad xirfadooyinka wax akhrin baa jira. xirfadahaasna insha Allah tacaala casharadena dambe ayaan uga hadli doonaa.